Lo yelo ay fogsanayo wabadane dayaci wakaso bilane bishari wabilghayr. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول الملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. dhalinyaro maanta waxaan ka hadlaynaa qoladii la oran jiray Hyksos macnaha qoladan aan rabo inaan ka hadalno waxaa soo baxaya qaladaadka ballaaran ee gaalada ay sameeyaan. gaal wuxuu moodaa inuu wax khiyaamaynayo, balse khiyaamadiisii ayaa ku soo laabanaysa. gaal markaa leeyahay waxa weeye manaahiijtan galbeedka ayaan ka hadlayaa oo taariikhda dhalinroga ballaaran ku sameeya. Hyksos haddii afka kale aan ku sheegno, afkeenna aan ku sheegno, waxay yidhaahdaan hego kas. marka af soomaali ahaan marka lagu baraa oo lagu baadho hego kas waa heego khase. heego waan garanaynaa, marka waa erey soomaali ah oo maaragtay heegada daruurta roobka ayaa maaragtay lagu tilmaamaa heegada. marka khasena waa ruux wax qasaya. heego khase waa Hyksoskeedii. marka haddaba heego khase waxay ahaayeen 1538 ilaa iyo 1600 oo nabiyullaahi ciise dhalashadiisii ka hor ayay ahaayeen. waxay ku soo duuleen masar iyo dhulkaas ayay ku soo duuleen oo bariga dhexe ayay ku soo duuleen, ayay qabsadeen. waa heego khase faraaciintii soomaalida ahayd ee haysatay, bimacnaa waxay tahay ayaa faraaciin kale, niman kale oo soomaali ah ku soo duulay oo dib u qabsaday ayagii oo idil. waxa weeyaan heego khase marka waxay ahaayeen waxay noqdeen boqortooyadii 15aad ayay noqotay. marka magaalada ay degeen waa masaaridan hoose lower Egypt halka loo garanayo ayay degeen. magaalo la yiraahdo marka Avaris ayay yiraahdaan gaaladii taariikhda qorqore, nimankii ajaanibka ah reer galbeedka ah taariikhda qore Avaris. magaaladan hoose Kushitig ayaa deganaa. Avaris ayaa la oran jiray. marka Avarisadii ayay isku dayeen inay dhalan rogaan, Avaris ayay u bixiyeen. Avaris marka 1782 nabiyullaahi ciise calayhi salaam ka hor bay waxay yiraahdaan rag ka soo oo Somatic ah oo Asiatic qolooyinkan ka yimaada bariga dhexe ee ka yimaada ah ayaa soo duulo qabsaday dhulkaas. haddaba Somatic waxaynu ku ahayn magacyada ayaa u diidaya inay yihiin Somatic ee ay yihiin niman la yiraahdo Kush, ay yihiin Kushitig. haye marka magacyadan Kushitiga ayaa u diiday. boqorkii markaasi u talin jiray haddaba waxaa la oran jiray kii qumaye. qumin waa waxa la quminayo xoolaha marka la quminayo, qumid hore u socosho. qume xuute ayuu ahaa. xuute waxaan soo sheegay magacyada xuute soomaalida ilaa al'aankan way la baxaan. oo waxaan soo qaadanay gobolka shabeellaha dhexe ayaan soo qaadanay inay xuutiyaal joogaan. hadda ka hor aan ka soo qaadanay 2 nin oo xuute la yiraahdo. midna waxaa la yiraahdaa xuute macaaney, midna waxaa la yiraahdaa xuute xaraarey ayaa la yiraahdaa. marka labada ninba waa 2 nin maaragtay aad looga garanayo gobolka shabeellaha dhexe iyo koonfurta Soomaaliya looga yaqaana. magacyada bimacnaa waxa weeye magacyadan xuute ilaa al'aankan way la baxaan, Soomaalidu way baxsadaan. xuute wuxuu ahaa boqorkii markaasi u talinaya ayuu ahaa xuute. gaalada marka waxay yidhaahdaan xuteeb, amin xuteeb iyo kuman xuteeb ayay u kala bixiyeen.
aamin xuteebna wuxuu ahaa boqorkii ku xigi markaas ayuu ahaa aamin xuteeb. haddaba xiliyadan waxay ahaayeen xiliyadii nebiyullaahi daa'uud calayhi salaam iyo nebi suleymaan xiliyadoodii bay ahaayeen, oo nimankan xuutiyaasha iyo nimanka maxaa la yidhahdaa higsoska loo yaqaano ee gaalada ugu taqaano ee annagana aan u naqaano heega qase aan u naqaano ee soomaalida ah xilligii ay dhulkaa degeen oo masaaridii horena qabsadeenna ilaa iyo bariga dhexe tageen. aragtiyo kala duwan ayaa jirta oo xataa ilaa iyo dhulkaa reer israa'iil way tageen baa lagu leeyahay oo way qabsadeen. marka boqortooyada marka magacyada ayaa laga kala garanayaa. axmoose boqorka la yidhaahda iyo waxaa isku beegnaa nebiyullaahi daa'uud calayhi salaam ayaa isku beegnaa. waxaa la sheegaa inuu wax ka dhexeeya qaar nimanka taariikyahanada in xiriir ahaan xiriir dhalasho inuu jiray ayaa la sheegaa, qaarna wax xiriir ma soo hadal qaadaan. marka ereyga waa erey af soomaali ah. moosid waa taqaanaa wax la moosayo. moose marka waxaa la yidhaahdaa xanuunka ayaa la yidhahdaa moose, xanuun moose, xanuunka kii moosayay ayaa la yidhaahdaa. sida matalan ereyada ee labalabada u socda dhagax oo kale waa dhag iyo waa kolkuu kugu dhaco dhag kugu dhaho waxaad tiraahdaa adigu waxaad leedahay mar kasta ayaad tiraahdaa. marka waa wax xanuun dhawaaq maaragtay xanuun keenay ayaa la yidhaahdaa. xanuun oo dhan marka wuu moosay, waa sida ereyga dhag ereyada labalabada way jiraan af soomaaliga way fara badan yihiin, sida ereyga maaragtay ereyada labalabada lacag waxaas iyo waxaas waa lacag marka waa qof walba way la eg tahay weeyaan. macnaha lacag waa lacag cagtaada, macnaha waa kabtan waa ku lacag waa ku gelaysaa micnihii. marka af soomaaliga waa af ballaaran ee abidkiisa jiray ilaa xilligaa nebiyullaahi daa'uud wuu jiray. marka aragtiyo kala duwan ayaa jirta. qaar baa yidhaahda nebi daa'uud calayhi salaam iyo nebi suleymaan calayhi salaam waxayba ka soo jeedaan qoladan higsoska ayaba maaragtay xiriir dhalasho ka dhexaysaa baa la leeyahay. inkastoo a'immada qaar ay sheegaan, a'immada islaamka ay sheegaan, ay noo sheegeen in maaragtay nebi suleymaan calayhi salaam iyo nebi daa'uud calayhi salaam ay lahaayeen midabadeenna ay lahaayeen innaga. waayahay marka boqortooyooyinkan marka ilaa iyo boqortooyadii 18aad ayay joogeen. waa la jibiyey kolkaa la jibiyey boqortooyadii faraacinadii ayaa dib u jibisay oo dhulkii oo idil wada qabsatay. waayo boqortooyo soo duushay oo dhulkaa ku habsatay qabsatay ayay ahayd. waa dad soo duulay oo isla dadkii un ah, kuwii joogay masaarida iyo kuwanba isku dadkii un bay ahaayeen. bilaadilbunt dhulkii udgoonka, dhulkii barakaysnaa, dhulkii ilaahyada unbay ka soo baxeenoo markaa waa isla dadkii un. waxbaa jiray kolleyba wixii ahaadaba wixii jiraba, laakiin dadkan waxaa la cadeeyay inay isku dadkii un ay yihiinoo isku dad ay yihiin. waa isku raacsan yihiin taariikhyahanada, inkastoo marmar reer galbeedka ay qaldaan ay marin habaabiyaan taariikhda dhabta ah. haddaba nebiyullaahi daa'uud calayhi salaam waataan hore u soo sheegnay wuxuu ilaahay ku manaystay inuu maaragtay birta gacantiisa oo maaragtay wuxuu doono kaga sameeyo, sida maaragtay cajiinka oo kale ama dhoobo qoyan oo kale isagoo samaynayo oo kale inuu sameeyo. waxaan soo sheegnay inay la tasbiixsan jireen buuraha iyo wax walba inay la tasbiixsan jireen, oo weliba kolkol la maqli jiray tasbiixda ay la tasbiixsanayeen la maqli jiray. taariikhdan asbaabaha aan uga sheekaynayno mar walba aan idin xusuusinayno waxay tahay inaad tahay asalkii aadanaha, inaad tahay oo kelibyada horena aan uga soo sheekaynay, oo isla markaana DNA-gii uu caddeeyey ee ayaga isla galbeedka un sameeyeen oo soo ururiyeen misna kusoo biyo shubtay soomaaliya kusoo wada biyo shubtay.
bacdama aynu nahay asalkii aynu nahay ujeeddada taariikhdatan aan kow uga soo bilaabay aadan uga soo bilaabay waayo taariikh kolkii haddii laga sheekeynayo waa horta marka hore waa inaad ka soo bilowdaa alifkeedii waa inaad ka soo bilowdaa ee aadan ka biloobin ya-da aadan ka biloobin waayo sababtoo alifka marka laga soo bilaabo in badan baa dadka waadix u noqonayo oo arkayaan aysan iminka ayna arki karin haddii aan ka bilaabo meel dhexe aan ka bilaabo ama qarniyadii soke haddii aan ka bilowno qarniyadan shishe qarniyadan fog qarniyadan faraacinada cilmiyo fara badan baa jira oo aan soo sheegnay oo yaalla dalkeenna markaan leeyahay meelo fara badan oo dalka ah ayay yaalaan qaar faransiiska baa maalin kasta dhex faagta sida dixdii dheereed ee randa tegaysay ee galaysay ee gudbaysay weliba ay iskaga dhex jiraan waxay training bay samaynayaan baa laleeyahay qaar mabley yaalaan ilaa iyo maxaa la yidhaahdaa tajura ayay yaalaan marka mable ilaa iyo tajura wax yaalla wax yar maaha buurtii ugul hareeraheedii way taallaa oo zaylac bay yaalaan boon bay yaalaan awbarqad bay yaalaan dhagax nebigele bay yaalaan waxay yaalaan laasgeel bay yaalaan laasgeel ciyaar maan hadda ogow buurtan gacan libaax la leeyahay dad baa macdan u doonta xaggee bay ka galeen ma garanaysaa kuradaa koray ka soo galeen in yar waayama dhawed beri dhaweeda maqmaqlaye hareeraheeda ku wareego godad baa jira laga geli kara ayaa jira waxaa ku qoran qoraaladii oo idil ayaa ku qoran cidinaha iskaga ogolaanina macdan baan baaraynaa intay yidhaahdaan ayay guranayaan taariikhdan asalka ah adiga aada leedahay ayay rabaan inay gurtaan taa waa inaad ka feejignaataan ceergaabo waa kadaalika taariikhdan asbaabaha aan uga sheekeynayno mar walba aan idin xusuusinayno waxay tahay inaad tahay asalkii aadanaha inaad tahay asalkii aadanaha inaad tahay oo kelibyada horena aan uga soo sheekeynay oo isla markaana d n a-gii u caddeeyey ee ayaga isla galbeedka un sameeyeen oo soo ururiyeen misna kusoo biyo shubtay soomaaliya kusoo wada biyo shubtay bacdama aynu nahay asalkii aynu nahay ujeeddada taariikhdatan aan kow uga soo bilaabay aadan uga soo bilaabay waayo taariikh kolkii haddii laga sheekeynayo waa horta marka hore waa inaad ka soo bilowdaa alifkeedii waa inaad ka soo bilowdaa ee aadan ka biloobin ya-da aadan ka biloobin waayo sababtoo alifka marka laga soo bilaabo in badan baa dadka waadix u noqonayo oo arkayaan aysan iminka ayna arki karin haddii aan ka bilaabo meel dhexe aan ka bilaabo ama qarniyadii soke haddii aan ka bilowno qarniyadan shishe qarniyadan fog qarniyadan faraacinada cilmiyo fara badan baa jira oo aan soo sheegnay oo yaalla dalkeenna markaan leeyahay meelo fara badan oo dalka ah ayay yaalaan qaar faransiiska baa maalin kasta dhex faagta sida dixdii dheereed ee randa tegaysay ee galaysay ee gudbaysay weliba ay iskaga dhex jiraan waxay training bay samaynayaan baa laleeyahay qaar mabley yaalaan ilaa iyo maxaa la yidhaahdaa tajura ayay yaalaan marka mable ilaa iyo tajura wax yaalla wax yar maaha buurtii ugul hareeraheedii way taallaa oo zaylac bay yaalaan boon bay yaalaan awbarqad bay yaalaan dhagax nebigele bay yaalaan waxay yaalaan laasgeel bay yaalaan laasgeel ciyaar maan hadda ogow buurtan gacan libaax la leeyahay dad baa macdan u doonta xaggee bay ka galeen ma garanaysaa kuradaa koray ka soo galeen in yar waayama dhawed beri dhaweeda maqmaqlaye hareeraheeda ku wareego godad baa jira laga geli kara ayaa jira waxaa ku qoran qoraaladii oo idil ayaa ku qoran cidinaha iskaga ogolaanina macdan baan baaraynaa intay yidhaahdaan ayay guranayaan taariikhdan asalka ah adiga aada leedahay ayay rabaan inay gurtaan taa waa inaad ka feejignaataan ceergaabo waa kadaalika waa halkii nebi suleymaan calayhi salaam raadkiisii oo lagu arkay waa halkii hudhudkii uu ku aasan yahay ee nebi suleymaan balqiisa akhbaarta uga keeni jiray balqiisa waxay yidhaahdaan inay ku aasan tahay nigeria
nigeria marka maxaa magacyada ayaa qaldahay kol walba waan sheegaa awrbaac baa la odhan jiray hooyadeeda awrbaac awr iyo baac waa awr waa garanaynaa waa awrta baacna waa qiyaas min qiyaasta lagu af soomaaliga ah ee cabiraada lagu samaysta ayaa la yidhaahdaa marka mar walba waxaa qaldaya afkii baa qaldaya afka waa muhiim marka dhalinyaro waxaan u baahannahay inaad marka hore bal aad kaashatid qur-aanka kariinka aad kaashatid oo tafsiirka aad baratid axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam aad baratid markaa kadib waxaan doonaynaa dalkii inaad timaadaan idinkoo yaqaana archaeologist idinkoo ah philologist idinkoo ah philologist waxaa la yidhahdaa ninka dhowr luuqadood yaqaana maca dhaqanadoodii yaqaana ethnologist idinkoo ah inaad timaadaan anthropologists idinkoo ah inaad timaadaan war waxbarasho waad haysataan waxa weeyaan waxbarashadii berigii hore annaga berigeenni maynan haysanin kanshiyaha hadda aada haysataan kanshi waxa weeyaan waa fursadda weeyaan kanshi waa erey af soomaali ah kanshiyaasha hadda aada haysataan inaga maynan haysanin waa teknolojiyada casriga aheed baad haysataan waa adduunkii odil wuxuu noqday hal maqsin buu noqday marka wax badan baa idin fudud inaad heshaan oo aad barataan oo dalkii aad kula soo laabataan dalkii kolkaan leenahay inta meelooda aan soo sheega maca nfd waa isla dalkii un haddaba dhalinyaro waxay nala gudboon aqoonta inaynu kaashano gaal wuuna mashquuliyey galbeed baan ka wada gaal kolkaan leeyahay orthodox iyo catholic oo soo adeegsanaya un soo adeegsanaya intuba maxay yihiin ma garanaysaa waa isticmaarkii shalay oo magaca bedeshay oo xirfadiina u bedelay isticmaarkii maskaxda u bedelay gumaysigii maskaxda u bedelay haddaba heeryadan gumaysiga maskaxda sidii layskaga dejin lahaa waan idin sheegay waa aqoon wax kale laguma dejin karo aqoon bay u baahan tahay xoog uma baahna nimankan reer galbeedka waa doqon anaa runta idin sheegaya qofka hadduusan bahaysan diinta islaamka uusan haysan wuu lunsan yahay total mon wuu lunsan yahay waxa waye wuxuu u baahan yahay waxaaga innaga waxaan haysanaa wixii naga hagi lahaa ayaan haysanaa manhajkii hagaagsanaa ee na hagaayay ayaan haysanaa manhajkaas aan xajisano manhajkaas aan ilaashano oo aan hirgelino oo aan ficil ahaan u muujino ma aha keliya in bugag un soo akhrisano oo kaasaan bartay ficilkii halkan buu yaalaa cilmiyadina halkan bay yaalaan oo dhabta ahaa kolka kaa intaa la timaadid adoo anthropologist ah adoo archaeologist ah adoo philologist ah adoo ethnologist ah markaad timaadid halkan waxaad helaysaa cilmiyadii hore ee faraacinada ee ku daaleen reer galbeed ku daaleen ay ka doondoonayaan buurihii masaarida ka doondoonayaan kolba qalab usoo samaystaan iminka waxaan arkaya qalab oo maaragtay x-ray ahaan dhagxaantii ka dhexbaxaya war ma yaalaan horaan idinku sheegay kolka adiga shaqo aad rabtid inaad samaysid ee aad tahay engineer dhismaha qaabilsan markaad dhismahaada dhisaysid oo balaankaadii dhismaha aad ku dhisi lahayd iyo xisaabaadkaadii aad dejisatid ee aad la tegtid goobtii aad dhismaha ka fulin lahayd dhismihii markaad dhamaysid waraaqaagii meesha ugama soo tegaysid waa soo qaadanaysaa xaafadaadii baad la imaanaysaa xaafadaadii marka waa halkan xaafadaadu waa mabla xaafadaadu waa randa xaafadaadu waa awbarqadle xaafadaadu waa zaylax xaafadaadu waa boon xaafadaadu waa laasgeel xaafadaadu waa buurtan daalo xaafadaadu waa ceerigaabo xaafadaadu waa buurhaybe waa inaad timaadaa dhulkaad timaadaa halkaas bay yaalaan wixii oo la hubo marka laga saaro weliba cilmigan wax ka ballaaran ma jiro hanti badan baa taal hantida waxa ka badan oo ka ballaaran cilmiga ayaa ka ballaaran waayo hantidu way dhammaanaysaa gooray ahaataba laakiin cilmigu ma dhammaanaya halkaas ayaan kusoo koobaynaa insha allah la soco nabiyullaahi daawuud baa inoo socda wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh